anaa khaldanaa marka idinkuna iska cafiya baan ku yidhi waradu ninkii waanu isbarannay si farxad leh buu meesha igu soo dhaweeyey waxaygii oo dhan buu yidhi ha loo dhib yareeyo qaybtii VIP da la iga saaray ayar baan diyaaraddii si sharaf leh saasaad ku tagtay yaan ku tegey halkaasaynu muqdisho ka gelaynaa marka ila soconniyo halkaa waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkii Hargeysa waxaan u gudbaynaa qaybtii labaad waxaad iga warantaa safarkii aad kaga baxday airportka Cigaal International ee Hargeysa iyo Xamar bal safarkaaga iyo waxaad kala kulantay siida waa mahadsan tahay ni horta bunkan aynu meesha ku cabno waan ka shakisanahay waxa lagu daraabaan u malayn maxaad istiri si baas maaragtay jawiga dhan ba waan ka baxaa caadiga faxban noqdaa mid kale ummadaha kale gabadh yar bay bun ka dalbadaan islaam waayeelaho xorba basha baa bunka kugu keentaniyo Etoobiyadii hore weeye Etoobiyadii hore ka hadhay hay marka bunkeedu waa original bunka way taqaanaa laakiin islaanta coverka ka xun bunkeedan rabnaa anagu coverkeeda iska wado waa sax weey safarkaygii Muqdisho horta safar wuxuu ahaa calool adeeg ku qotama waxaa kaloo uu ku qotomay tawakkul wax la yiraahdo saan hadda ka hor kuu sheegay Muqdisho xiriir badan maana la lahayn marka inta badan waxaan caado u leeyahay inuu meeshan tagayo sida filimkii baan soo dhijiyay calow meel hebla waan soo socdaa baan dhahaa moogta dadku way la soo xiriiraan waxay dhahaan wartay safarkaaga lama sheego amnigaaga iyo uma fiicna arrimahaaga iyo faa'iidooyinka ku jira meel hebla waan soo socdaa ma garanayaan dadku meel hebla waan soo socdaa markaan dhaho taageerayaashaydii iyo dadkii soo dhaweyn lahaa iyo baa sii diyaar garooba haddii amni loo baahan yahay qudheeda maamulka meesha ka jira yaa amniga wixii kaga aadan ka sii qaata ilaa nin Soomaaliyeed waxaan ahay nabadoon oo dhulka Soomaalida oo dhan isaga talaabe ma fahantay yaa ku soo dhaweeyay Xamar kolka soo dhaweyntaadii maxaad kala kulantay Xamar markaan u socday maadaama oo dad fara badan oo telefoon gaar aan uga hayo aysan jirin ninaan saaxiibanahay halkan joogo Ibrahim la yiraahdo yaa wuxuu igu xiray gudoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed nin lagu magacaabo Maxamed Ali Siyaad oo halkan ka salaamayo ninkaas baan la hadlay waxaan ku yirinayo waan soo baxayaa Xamarna dad badan anigu kama aqaano 2018 baa igu dambeysay de waxaan rabaa inaan magaaladii taageerayaashaydiina la soo kulmo dawladana wixii aan kala kulmi karo aan kala kulmo magaaladana aan soo barto de Xamar meel caadi ma aha Xamar meel caadi ma aha marka waa adduun kala weey maxaad ka wadaa caadi ma 4 milyan iyo bad ilaa 5 milyan dadku dhawaada baa ku nool populationka ay dadka ku nool tiradooda waa magaalo ganacsiga khatar ku aweeyaan waa magaalo siyaasad kulul ay ka jirto siyaasad kulul oo maaragtay marka qaarkood dhinac ay u jeedsanaan war loo hayn marka hadaadan aad reer magaalo ahayn inaad ku dawaqdaa laga yaabaa marka xogaa cabsi baa igu yeer jirtay sidee noqon doono xaalku laakiin anu sideedaba noloshaydu waa iska khamaar haddaan qurxiyana